Halkani waa dalka Niger, halkaas oo mashaariic waaweyn oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah ay ka socdaan, kuwaas oo wax weyn ka beddelaya muuqaalka dalka, iyaga oo dhiirigelinaya koritaanka dhaqaalaha, dhisayana fursad cusub oo ay kaga faa'iideysanayaan malaayiin qof oo ah shacabka ku nool dalkaasi. Haddaba haddii Niger aad u haysato inay tahay dal dhaca galbeedka Afrika, sidoo kalena muddo dheer la daalaa-dhacayay dhibaatooyin iyo faragelin ajnabi, caana ku ah bariga oomanaha ah ee biyaha aan lahayn, haddaba waxaynu muuqaalkeena ku eegi doonaa horumarka ballaaran ee ka socda galbeedka Afrika, gaar ahaan dalka Niger. Waxaynu maanta warbixinteenana ku dul istaagi doonaa waxa laga qariyay ee ka socda dalka Niger, si aynu u ogaano mashaariicda ugu waaweyn, ugu dhiiran, uguna xiisaha badan ee dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah ee hadda ka socda dalkaasi. Mashaariicdan waxay u taagan yihiin ganacsi dhab ah, waxayna xoojin doonaan dhaqaalaha, waxay kordhin doonaan ganacsiga, waxayna abuuri doonaan kumanaan shaqo oo ay dhalinyarada dalkaasi ka faa'iideysanayaan. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa la dhisayaa, yaa maalgelinaya, sideena u qaabeyn doonaan mashaariicdan mustaqbalka dalka Niger? Caasimadda dalka Niger, magaalada Niamey, waxay u kobcaysaa si degdeg ah, saxmadda baabuurtuna waa dhibaatada ugu weyn ee saameynta weyn ku yeelata isu socodka magaalada. Sidaasi darteed, dowladda dalka Niger waxa ay dhistay wadooyin cusub oo hareer-marid ah oo dhererkoodu uu gaarayo 40 kiiloomitir, oo loogu talagalay in lagu yareeyo saxmadda, lagu xoojiyo ganacsiga, laguna xiro wadooyinka waaweyn ee gaadiidka, gaar ahaan jidadkan hareer-maridda ah. Waxa ay leexinayaan baabuurta waaweyn ee xamuulka ah, iyaga oo gaadiidka ganacsiga si ay uga fogaadaan bartamaha magaalada, sidoo kalena aysan u waxyeelayn magaalada isu socodkeeda. Waxa ay wadooyinkani ka kooban yihiin dhowr layn oo kala duwan, buundooyin isdulmara, iyo isgoysyo si weyn loo habeeyey si loo xaqiijiyo isu socodka ku habboon baabuurta xamuulka. Wadooyinkani waxa ay ku xirayaan qaranka jidadka waaweyn ee caalamiga ah. Mashruucan waxaa lagu maalgeliyey ku dhowaad lacag gaaraysa 75 milyan oo doolarka Mareykanka ah, waxaana maalgeliyey dowladda Niger iyo deymaha caalamiga ah ee laga soo qaatay hawlgalayaasha sida Bangiga Horumarinta Afrika. Intaasi waxaa dheer, jidkan waxaa dhisaya shirkad caalami ah oo laga leeyahay dalka Jaynaha, taas oo si weyn caan ugu ah bixinta mashaariicda wadooyinka ee baaxadda leh ee guud ahaanba qaaradda Afrika, iyada oo mashruucan la dhammaystiray dabayaaqadii sanadkiina dhaafay ee 2025. Jidkan hareer-maridda waxa uu ku xiraa dalka Niger wadamada deriska ah sida Nigeria, Burkina Faso iyo weliba dalka Mali, taas oo ka dhigaysa ganacsiga mid ka dhaqso badan kana hufan sidii hore. Waxa uu yareynayaa saxmadda gaadiidka, iyada oo isu socodka maalinlaha ah ee magaalada uu noqon doono 30% mid ka dhaqso badan sidii hore, halka leexinta baabuurta xamuulka ahi ay yareynayso halista shilalka magaalooyinka dhexdeeda ka dhaca, maadaama in ka badan 10,000 oo baabuur ah ay si maalinle ah u isticmaalayaan wadooyinkan kala duwan ee hadda ay dowladdu hirgelisay. Jiinka webiga dalka Niger waxaa ku yaala mashruuc loogu talagalay inuu noqdo isha ugu weyn ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee dalka, isaga oo mashruucan uu bixinayo koronto awood leh, waraab iyo biyo la cabo. Gaar ahaan biyo-xireenku waxa uu dhalin doonaa 130 megawatt oo koronto ah, taas oo ku filan inay koronto siiso 3 milyan oo guri. Waxaa kale oo mashruucan ku jira nidaam waraab oo loogu talagalay 45,000 oo hektar oo dhul-beereed ah, taas oo ka dhigaysa beeraha Niger kuwo ku filan oo wax soo saar leh. Intaasi waxaa dheer, kani waa mashruuc ku kacaya 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, kaas oo ay maalgelinayaan dowladaha Saaxil, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Horumarinta Islaamka. Gaar ahaan mashruucan waxaa horkacaya isbahaysiga dowladaha Ruushka iyo weliba Turkiga, iyada oo la filayo in mashruucan la dhammaystiro marka la gaaro sanadka 2027. Waqtigan xaadirka ah, Niger waxa ay ilaa 70% korontadeeda kala soo degtaa dalka Nigeria. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ama mashaariicdani waxa ay bedeli doonaan arrintaas, iyada oo Niger ay ka dhigayso mid si madax bannaan u dhalin doonta tamarteeda. Waxaa intaasi dheer, mashruuca kaydka biyaha ee Kandji
waxa uu qaadi doonaa 1.6 bilyan oo mitir kiyuubig oo biyo ah, taas oo yareyn doonta daadadka iyada oo la xaqiijinayo bixinta biyaha ee deegaanada miyiga ah iyo magaalooyinkaba. Marka laga reebo in ay 40% kor u qaadayso guud ahaan wax soo saarka korontada ee dalka Niger. Ka fakar dhuumaha gaaska oo dhererkoodu uu gaarayo 4128 kiiloomitir oo ka bilaaban doona dalka Nigeria, sidoo kalena dhex mari doona dalka Niger kuna dhowaan doono ilaa Algeria. Kaasi waa mashruuca dhuumaha gaaska ee loo yaqaano Trans-Saharan, mid ka mid ah mashaariicda tamarta ee ugu waaweyn qaaradda Afrika. Gaar ahaan dhuumahani waxa ay qaadi doonaan 30 bilyan oo mitir kiyuubig oo gaaska dabiiciga ah sanadkii, iyagoo ka soo qaadayo ceelasha gaaska ay hodanka ku tahay Nigeria kuna dhaweynaya qaaradda Yurub, iyada oo dhuumahan la sii marsiinayo dalalka Algeria iyo Niger. Waxa ay Niger ciyaaraysaa kaalin muhiim ah maadaama dhuumahani ay dhex mari doonaan ku dhowaad 1,000 kiiloomitir oo ka mid ah dhulka Niger, iyada oo abuuraysa faa'iidooyin dhaqaale oo baaxad leh. Mashruucan oo ku kacaya 13 bilyan oo doolarka Mareykanka ah waxaa lagu maalgelinayo isbahaysi ay ku jiraan howlgalayaal ay ka mid yihiin dalalka Nigeria, Niger, Algeria iyo maalgashatada caalamiga ah ee qaaradda Afrika oo ay horkacayaan shirkadaha Sontrach Algeria, Nigeria National Petroleum Corporation iyo weliba shirkadda saliidda qaranka ee Niger. Dhuumahan ayaa la filayaa in la howlgeliyo sidoo kalena ay shaqeeyaan gudaha sanadka 2027. Marka ay shaqada bilaabaan sidoo kalena la hirgeliyo, dhuumahan waxa ay dabooli doonaan 10% baahida gaaska ee Yurub, halka qaybta Niger ay ku leedahay dhuumahani ay soo xareyn doonaan qiyaastii 300 milyan oo dollar sanadkii oo ah khidmadda marinka. Dhuumahan waxa ay sidoo kale kor u qaadi doonaan amniga gobolka maadaama saddexda wadan bay iska kaashan doonaan tallaabooyinka badbaadada. Niger waxa ay leedahay kayd saliid, laakiin inta badan waxaa loo dhoofiyaa sidii saliidda ceyriin oo kale. Dalku waxa uu soo dhoofsadaa shidaalka la sifeeyay kharash aad u sarreeya. Warshadda saliidda ee Doso waa warshad casri ah oo sifeynaysa saliidda ceyriin si looga dhigo baasiin iyo nafto iyo shidaalka kale, iyada oo awood u leh inay soo saarto 20,000 oo fuusto maalintii. Taasi waxa ay ku filnaan doontaa inay buuxiso baahida dalka gudihiisa ka jirta ee shidaalka ah, iyada oo la rajeynayo weliba in loo dhoofiyo wadamada dariska ah. Miisaaniyadda mashruucan waxaa lagu qiyaasay 600 milyan oo dollar, iyada oo mashruucan maalgelintiisa ay taageerayaan maalgashadayaal caalami ah iyo iskaashatada gobolka iyo weliba shirkado ka shaqeeya dalalka Shiinaha iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Qandaraaslayaasha waxaa ka mid ah isbahaysi iyo shirkado caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo ku takhasusay kaabayaasha tamarta, iyada oo taariikhda dhamaystirka ah la filayo inay noqoto sanadkan aynu ku guda jirno ee 2026. Haddaba dalka Niger waxa ay soo dhoofsataa ku dhowaad 70% shidaalkeeda oo la sifeeyay, laakiin marka la dhamaystiro mashruucan, warshadani waxa ay dhimaysaa kharashka wax soo dhoofinta, waxayna xasilin doontaa qiimaha shidaalka, waxayna abuuraysaa kumanaan shaqo oo toos ah iyo kuwa aan toos ahayn. Haddaba in si weyn loo dhaqaajiyo kaabayaasha dhaqaalaha ah ee dalka Niger ee sanadka 2026-2027 waa barta isbeddelka dhabta ah. Niger waxa ay isku beddelaysaa indhaheena hortooda, iyada oo leh jidadka hareermaridda casriga ah, warshadaha awoodda badan ee korontada, biyaha iyo dhuumaha gaaska ee wax weyn ka beddelaya xaaladda gobolka iyo guud ahaanba qaaradda. Dalku waxa uu qarka u saaran yahay inuu noqdo quwadda dhanka gaadiidka, tamarta iyo dhaqaalaha galbeedka Afrika haddii la hirgeliyo mashaariicdan caalamiga ah ee ku kacaya balaayiinta dollar. Daba daawade, haddii halkan nala soo gaartay channelka subscribe dheh, isla markaana ka mid noqo saaxiibada inugu xiran. Waxaynu halkan kusoo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaallo xiiso badan.